Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo maalmo ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho ayaa maanta ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ajakis ayaa waxaa lagu aasay Muqdisho iyadoo aaskiisa ay ka soo qayb galeen saaxiibo ehelkiisa iyo dad la soo shaqeeyay. Qabuuraha Iskool Buluusiye ayaa lagu aasay waxaana goobta lagu aasay soo buux dhaafiyay dadyo badan oo ka murugaysan geerida Ajakis. Kadib markii la aasay ayaa waxa warbaahinta la hadlay saaxiibo waqti badan la soo shaqeeyay Ajakis iyagoo wajiyadooda ay ka muuqatay murugo ayaa waxa ay ka hadleen geerida saaxiibkood iyagoo alle ugu bariyay inuu jannadiisa ka waraabiyo. Allah uu dhigo jannada firdaws Allah ka waraabiyo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo nin taariikh ka tagay waaye caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo Soomaali weyn oo dhanbe ilaahay sabr iyo iimaan Allah naga siiyo kulligayna oo naga dhintay nin oo maanta wuxuu ahaay oo bashaashe oo wanaagsan oo fiican afkiisa dad gaareenin ayuu ahaay maanta alxamdulillah ilaaha noo kulmi naftirkeyga wali soo dedeji wa caleeni walhalkaada dhimanooyay bal tagni liiri caman magasi ilaahay baa ikeeni saantay rabbi subhanahu qaadira halkaan keeni ilaahay waxaan ku xamdinaa ilaahay halkaan ikeeni oo maanta Ajakis duugtiisa aan ugu soo qayb gali ilaahaysan ku xamdi giisa Allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo jannatul firdaws ilaahay ha ku awaal mariyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantooda meel walba oo dunida guudkeeda ka joogaan gaar ahaan caruurtiisa xaaskiisa ehelkiisa oo annagaba koow ka nahay kharaawadiisa oo annagaba koow ka nahay tolkiisa oo annagaba koow ka nahay sokeeyihiisa oo annagaba koow ka nahay dhammaanteena samir iyo iimaan ilaahay hanaga wada siiyo marxuum Cabdi Muriidi Dheere maanta uu geeriyooday intii dharareysay geeridiisa iyo intii aaminsaneed naf walba markuu ajasheeda ilaahay soo dhameeyo inay dhimanayso dhammaantoodabe Cabdi Muriidi Dheere maantuu macnaa in geeriyooday wixii hadal ah abwaaniinta madaxdayna asxaabtayna ayaa soo jeedisay in horta maanta waxaa naga baxay tiir dhexdayna ah Cabdi Muriidi Dheere waa sidoo aabaheena markay uu sheegay anaga ugu sokaynay dad qaraabo ehel intaba marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin إذا جاء أجلها لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون marka qof walba maalin oo dhimana marka hadal karna hantii ma sii wadwadi karno waxaan leeyahay Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan Cabdi Muriidi maanta wuxuu u baahan yahay in faataxada loo maro qul Allahum loo akhriyo walaalkeen Cabdi Muriidi Dheere Ajakis Allah u naxariisto jannadii firdawsna Allah ka waraabiyo maanta wuxuu nooga baahan yahay kaliya inaan u duceyno walaalkeen wuxuu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed waxaan uga tacsiinaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed asxaabta ehelka iyo cid walba saaxiib la ahayd walaalkii Allah naga samarsiyo qof adduunka ku waaraayo ma jiro qof walba maalin uu yimaadaa maalin uu baxaa maanta maalintiisa ku ekaatay waxaan kor taaganahay qabriga waaye inaan ku cimri qaadanno walaalkeen Ajakis meesha maanta la dhigay qof kasto naga mida inuu ku cimri qaato ogaado in meeshaas la isdhigayo oo intuu adduunka joogo u shaqaysto aakhiradiisa siday ahaanayso aas loogu sameeyay Allah u naxariistay mujaajiristi caanka ahaa Cabdi Muriidi Dheere Ajakis Cabdi Muriidi Dheere Ajakis aaskiisa waxa ka soo qayb galay shacab badan iyo sidoo kale mas'uuliyiin isaga la soo shaqeysay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis ayaa muddo waxa uu ku xanuunsanay Muqdisho iyadoo la sheegay in xanuunkiisa uu ka soo bilowday in istaag uu ka dhacay waxaana muddo uu ku jiray isbitaalka Yerdimeeli ee Muqdisho ugu dambeyn maanta waxa lagu aasay qabuuraha Iskool Buluusiye ee magaalada Muqdisho Abshir Cabdullaahi Amiin Kalsan TV Muqdisho